السلام عليكم أصحابتي جماعة wanaagsan waxaan rajeynaya inaad fiican tihiin adduunka meel kasta ka joogtaan routiinkayga ayaan iska soo lugeyn jiray ayaan maanta ku jiray buurta naga dambaysan halkaa ka hargeysaan mooyaan buurta yaroo naga dambaysan xaafadda waxba u jirinba ayaan isleeyahay maanta bal dusha uga baxo ka hor doon ma garanaysa dee waxaan ku iri mashbaxsana way noo noqonaysaa allahu mustacaan waxaan kusoo dhawaada insha allah wixii maanta ka dambeeya isbuuciiba laba muuqaal baan insha allah soo daayo ilaahay ka dhigo just to be consistent, you know what I'm saying? Marka maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay inaad subaxii aad hurdada shanta subaxnimo ka boodo buugan akhriyey oo la yidhahdo the 5am club ayaa igu dhalay inaan muuqaalkan maanta insha allah idin soo wadaago wixii aad faa'iido ka aragto dadka waa lala wadaagaa marka in hurdo kugu filan aad hesho 8 saacadood seexato habeenkii subaxii inaad ka booddo 5 subaxnimo wax adduunka ugu fiican weeyaan dadka billionaireska millionaireskii rag qaar baa kaca 3 marka habeenimo 5 habeenimo marka inaad 5 subaxnimo kacdo macquul ma noqonayso in habeenkii xilli dambe seexato subaxii inaad xilli hore ka booddo marka inaad subaxii aad xilli hore kacdo waxaa kaa caawinaya dee inaad xilli hore habeenkii seexato marka faa'iidada ugu horreysa in la wadaagayo inaad subaxii aad 5 subaxnimo ka booddo waxa weeyaan sheekar baan la wadaagayaa oo waxay dhahdaan peak time bay dhahdaan peak hours ayay dhahdaan markaad 5 subaxnimo aad ka booddo 5 subaxnimo markaad hurdada ka booddo faa'iidada ugu horreysa in la wadaagayo waxaa ka mid ah productivity levels 5 subaxnimo aad 5 subaxnimo kacdo dee ta koowaad la sameynayaa waxa weeyaan inaad horta aad habeenkii aad xilli hore seexato saynisyahannadu waxay dhahdaan 8 saacadood ayaa maxay tahay lagu talagalay qofka adultka qaangaadhka 8 saacadood baa ku filan hurdo ku filan heli karaya inuu seexdo habeenkii habeenkaad 8 saacadood seexato subaxii waxaa soo baxaysaa adoo fresha daalkii kaa baxay ma garanaysaa maalinta qofka markuu ma garanaysaa uu shaqaynayo fikirayo activities qabanayo unugyada jirkaaga waad damage garanaysaa waxbaad yeelaysaa habeenkii markaad seexato maxaa dhacaya habeenkii jirkaas furfuraya allahu mustacaan damagekii ama maxay tahay jirkaaga damagekii aad ku samaysay baad ayad habeenkii kasoo kabanaysaa marka habeenkii markaad seexato qofka habeenkii markuu seexo jirka baa furfuraya unugyadii baa sirbeer garanaya dib usoo hagaajinaya unugyadii maanta markaad fikiraysa shaqaynaysay aad maxay tahay aad dubaha u qaadatay la dhacaysay habeenkii markaad seexato waxaan ku iri unugyadii baa dib isu repair garanaya dib usoo hagaajinaya marka iminka tusaale aan siinaya qofka habeenkii 8 saacadood seexda iyo qofka seexda 4 saacadood muuqaal ahaan isku mid maaha tusaale aan siinaya bini'aadamku tusaale wax ku fahmaanay nin la yidhaahdo Agas ayaa 10 sano ugu dambeeyey habeen kasta wax seexan jiray 4 saacadood marka ninka soo sheelatan jir nin kaloo 30 jira oo waa la yidhaahdaana 10 sano ugu dambeeyey 8 saacadood buu seexan jiray ninka Agas la yidhaahdo sheelatan jirkii 4 saacadood seexan jiray 10 sano ugu dambeeyey muuqaalkiisu wuxuu ekaanay qof 30 jira ninka waa la yidhaahdee 10 sano ugu dambeeyey 8 saacadood seexan jirayna muuqaalkiisu qof sheelatan jir u ekaanaya marka sheekada maxaad ka fahanteen was the moral of the story marka dulcud sheekada waxa weeyaan hurda yarada ama hurda la'aanta gooba laga qaadaa yaa salaam meela socotaan hadda 8 saacadood qofku markuu seexdo de waxaan ku iri kaala arag baad noqonaysaa rin kalis ma yeelanaysid oo ma garanaysaa hore ma gobobaysid marka locationkan yaro bedelay habeenkii aad seexato 8 saacadood waxaa kaa caawinaya dee inaad horta hurdada aad ku fadhiisiiso waxaa jira rule la yidhaahdo 3-2-1 oo ku saabsan hurdada no food 3 hours before bed no water 2 hours before bed no screen time
1 hour before bed markaas 3 saacadood ka hor intaanad seexan waa horta cunto aanad afka saarin 2 saacadood ka hor intaanad seexanna waa inaad biyo aanad afka saarin saacad ka horna waa inaad soo jeeso screen time ood mobilka iska xadhayso buugga la soo baxdo buugga iska akhrisato marka taasina waa scientifically proven oo waad tijaabin kartaan markaan saan sheegayey Soomaalidan haddaad u fiirsato qofku siduu moolku wuxuu doonaya siduu moolku isticmaalayo inuu seexdo dee 3-1 rule-kan sheegayey ayaa ah in saacad ka hor no screen time 1 hour before bed Soomaaligan iskaga hadlaynaaye saacad ka hor intaanad seexan waa inaad tv-ga iyo mobilka iyo laptopka iyo ipad-ka iyo tablet-ka waxoo dhan waa inaad waqtiso saacadda hurdada ka hor waa inaad maxay tahay jooga saxdaa leerka iska damisaa maxay tahay sariirtaad buug yar ood ka akhrisaa ama maxay tahay laambad yar shidataa si aad buugga u akhrisato buug yar aad akhriyaysaa wuxuu ka caawinayaa inaad indhihi yara daaliso magaranaysa hurdada inay soo dhawaato laakiin ilaa intaan seexanayo mobil baan soo haynaya oo waxaan doonaya ku seexdo taas xitaa indhahaaga uma fiicno dee marka dadka qaar leerka damiyaan ee moolka isticmaalayaan moolkana habeenkii brightness-ka la iska gaabiyaa dee brightness-kaasi waa radioactive oo indhuhu wax ka yeeli karaa marka buugaagtaan akhriyaa waxay igu dhalayaan inaan maxay tahay vlogyadan aan duubayo raayadooda buugaagtaan akhriyaan ka keenaa marka imika buugga 5am club aan akhriyay wuxuu igu dhalayay inaan dadkayga iyo mujtamacayga la wadaago faa'iidada ay leedahay in 8 saacadood intaad seexato aad subaxiina 5 subaxnimo ka boodo marka way is-activate garaynayaanoo dee adoo hurdadii aanu ku fadhiyin oo 8 saacadood waxaan ku idhaahdaa seexan oo habeenkii xilli dambe seexda way adkaanaysaa inaad subaxii 5 subaxnimo kacdo marka way is-activate garaynayaa waa xagga hore aad barnaamij ka soo saxdaa barnaamijka marka xagga hore aad ka soo fadhiisisee 5 galabnimo aad cashaysee 8 fiidka maxay tahay khudradda ku adkaysee 9ka seexato markaas 5 subaxnimo kici kartaa iyadoo adoo hurdo ku filan helay there is no point inaad 5 subaxnimo kacdo adoon hurdo ku filan helin maalinta hurdo ku filan hesho waxaad ku garanaysaa marka 8 saac seexato subaxii waxaad soo kacaysaa adoo fresha oon hadal karayn oo waxaan ku yidhi endorphin bus buurta shan sano dusha ka koro magaranaysaa magaalada view soo daawo that's my challenge magaranaysaa marka on any given day waa inaad samayso 3 wins waa inaad samayso 1 physical 1 mental kii saxaadnii soo qabta comment taas saxaad ku soo qora way kala carurtay